السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا شرفتي كرام بديقة مضن أديضا من دمانتي نيوضا السلامي ميل كستاب شوكتان ما أنت وحيني هيا شيكون يروقع قابا وأنا سليه وحوي وشيكون معانا سليه دي حقيقة يعني قياستي كيب سميويا هدي كيب سمان هدي كنا يقدون تا هداني كيب سنة ودي يقدون شيكada warsadan maanta inuu soo qabto waxa sheekadan magaceedu wax la yiraahdo maxay tahay amaay noqotay la yiraahdo maxay tahay waxa oday iyo islaan odaygu uu yahay oday da weyn uu yahay ilaa 60 jir meelaha gaari ayaa wuxuu guursaday islaan kale iyadoo 60 jir meelaha ku dhawaatay marka waqtigaas waqti hore ahayd magaalada Hargeysa sheekad ka dhacday baa la yiri saa sheekadan ugu soo gaadhay magaalada Hargeysa ka dhacday marka waxa la sheekadii markii ay iskuursadeen ayaa odaygu wuxuu ku yiri islaanta jimco kasto oo aynu xaajada waajibka guurka gudano ee sariirta gudano ilaahay maxay haytay wuxuu dilayaa hal gaal baa dhimanaya hameen markasto aynu xisaabta galaba damile faanto marka sariirta hal gaal baa dhimanaya marka waa dareemaysaa dad waaweyn waa dareemaysaa dadka waaweynaadana waxay khayr ka raadiyaan maxay haytay sidii khayr ku heli lahaayeen sidii jannada ugu dhawaa lahaayeen oo kale raadiyaan islaanta habeenkii maalinta dambe dhowr jimco markuu doodaygi ciyaarihii buu maalinta dambe u soo gaadhay inaan ciyaari karin guriga hore u soo gali waayo islaantii qolkeeda iska gashay baa intii markay dibuulkii gashay bay gurigii diirisay habeysay bay tiri xaaji warsamo yaa warsame marka odayga warsame loo jiray islaanta mulaaxa loo jiray suuraa mulaaxu saytire bal soo kac waqti ma harsane ay midgaala balaynu ka gaadho midgaala ay midgaala dille soo ku yiri mulaaxo isla gaaladu ku dhamaamaysay iska seexo mulaaxo isla gaala ku dhamaamaysay iska seexo saytire astaghfirullah isaga waa nin waxba garanaya haye bal ka soo kac dibato iyo dhaxantu ku galine gudaha iska soo gal سوري اسكاسي حبولا حوانا سوقل يا مولا اسكاسي حوانا وكوي ما دونين تكبت هوي وملاحو يسيحو قال اصلا كل ما مسا شيء كذا مقعد الله يرضى شيء كذا لبضاي نهايه عاو ما انت يليسو قدبني يعني هي كل وحويان وشيء كره يدنا محيتي قصيصه اون قولك قصيصه نينا صاحبنا بيت كل عضي ومد عد تنوا وحوي شيء كعض ودانا اورني بمحيتي بير خريل على انا اورنيين نينا صاحبنا هبا قورسدي oo inta ahaana ku gaaray markii hore da'da caadiga iska hayo laakiin aan hasaawo aqoon markii hore dumarka aan la hasaawo jirin ayaa ilaahay mid uga niyay ninkii markuu inantii guursaday markaa waad garanaysaa Yurubka jooga inantii markuu guursaday oo gabadhii guursadeen aroos may dhigan inantu magaalo kale deganaa isagoo magaalo kale deganaa inantii magaaladii ka soo wareegtay gurigiisii uu deganaa buu maalintii siir camiray qaar ba ka macaaniyay bababa uu yar roday ninkii weligii alihi mid xaraanana mu arag mid xalaalana mu arag inanku wuxuu ka xishooday inantii gabadhu guursaday wuxuu ka xishooday inuu ku yiraahdo sidaynu ciyaarnaa champion league kan sidaynu ciyaarnaa ilaahay uu sharciyeysteen diiray sharciyey sidaynu ciyaarnaa inanku wuxuu ugu yiri markaa isaga sheekeynay wuxuu markaa waxaan ka xishooday inantii ku yiraahdo champion league kan ciyaar yani daynu iska laasanade kadib inanku sariirtii weyneed labada nafar ahayd baa guriga u taalay wuxuu ku yiri xaggaas aan kaaga jeesanay adiguna xaggan u jeeso waa kaasii iska seexiyay magalata markii casheeyeen hawsha dhamaatay inantu way iska seexatay isagina markii dab uu soo galay uu iska seexday oo kulli aanu jiifa markaas ayuu inanku markaa waa inaan maxay tahay isaguna reer jigjigan ku weeyaan inanku markaa wuxuu niyadda waxaan ana siribi ana nafteedu sheeg wuxuu waxaan ugu alla gubiye kaaliyo gaal ku dhalay gabadhan maxaad soo guursatay mayna ku agseexato sidoo kale buu fikiraa uu leeyahay waxa iska dahaska hurida caawa maxaad bari ku hor doontaa inantina ma isticmaal soo yiri nimca koomay ma seexatay say ku tilmaamay waa soo jeedaa sidii marka ku yiri waa soo jeedaa wadan iska yaraan ma soo ku yiri kuwan hurdo xuma haye lugahayga in madaxa kaaga dhicine xaggan iskaga soo jeeso waxa iskaga soo jeedaa hadoogo xaggan iskaga soo jeeso marati soo jeesatay ma hadana iska seexday buu lama hadin waxa si maxay tahay hodhow ya sabto muxuu basmay doontaa yar kadib wadana wuxuu ku yiri buustahan aynu anu go'baan huwanahay dhaxan baa soo dhacday buustaan kule huwa kara markaasay ku tiri taylaho waa caadi
wixii dhacay markaa muujiyay ka dambeeyay yani taasina waxa sheegaysaa markuu leeyahay luguhu yaani kugu dhicin iska sii kala jeesano systemka ma garanaysaa maxay ahayd tooy dee labada qof ee dee ku heshiiyey guurka ku heshiiyey yani daani isfahanka dhinacaas intaasi ku sheekadaas ahayd sheekada kale aynu hayeen maanta maxay tahay deen ku fici doona insha Allah deen baanday doona insha Allah billahi baari aynu eegi doona idana waxa weeye waxa laba nin oo maxay tahay reer burcaba maxay tahay burca ka yimi marka laba nin oo waaweyn bay hayeen waxay qabteen miigay qabteen markay magaalada joogan wax maqli jireen maatidii baa miiga degan maatidii baan ku qaadaya maati bay maqleen labadii mid ka mid ah ayaa guurkii ayaa hore u guursay way kii kana gaadhi iska kaxaysta oo gaadhi buu barto gaadhi buu wadaa marka kii maatida la oranji marka kii aan waxba shaqo aan qaban dib miigiisa qabtay baa xoolo iska dhaqday reerkoodii kale u tagay miigiisa iska joogay markuu ilaa 40 jir konta jir markuu meelaha yahay ayuu guursaday markuu guursaday kadib uu gabadhii uu guursaday waa markii uu guursaday maatin uu maqli jiray hadoogo waa dhibaato jiray hadoogo ayaa gabadhii soo kaxiyay wuxuu keenay maxay tahay inuu burca la soo qabtay buu doonayay gabadhu waa gabadh xoogahoo dad dhowri 20 jir xoog aan uurna lahayn carruurna aan wada marka wadooyinkii horena day laami waxan ma jirin wali ma jiraan markaa laakiin laami ma jirin baawur markaa kolba saas uu sibiqaynaya mugto markii dad xaq gabadh u soo leexeen buu jiraa ka bay diintaada waxa ku sameeyay maatida waayahay markaas oo hadana saa ugu soo leeyahay sadana waa ka joog maatida nooga bayd maatida baasri xulay maatida ka joog deeniga markuu midiis ka soo jiro yar maatida dhinac uga bayd ragii ka wadi ilaaliyay ninkii yar gaariga noo joojin ninkan gaariga wadaana waa ninkii berigii ay magaalada ka soo wada baxeen jaamac furur baan kala yaraa marka maxay tahay maatida ka sheekeynay ayno jeejiga ku gaariga ka digan ninkii uu dilay maatida ka sheekeynaya maasuul war iska saarada waa jaamac furur konta jir wax ku guursaday markii hore aan waxba guursan maatidu maqlo war maatidu sidan ma ahay maatidu waa ninka caruur la socota ee gabadha umur tahay ee waxaan ku yiri reerku habaqsan yahay weey intaasaan maanta sheekadooyinka inagu soo gabagabeynaya shaala bilbillahi baari sheekooyin fara badan baa inii haya oo inii soo gudbinaya qaar fara badan baa inii haya intan waa hordhacuun dhama intan la yiraahdo dhama deecaan baa la intan waa baldeecami caashaqa carabkiyo dibna hasar niyadana oo siida qalbigana ka daalco doonidii jacaylka raacni hayna la dawaafte ku suubud dusheeyday isku daawadoona dusheeyday isku daawadoona marka waan deecaamina bis aad bayni wada salaamay dhamaantiinba channelkana waxaan leeyahay subscribe iyo like tay saar insha Allah dadna soo kiciya waan hurudnaana soo kiciya insha Allah dadna maxay tuna dhigay galiya wax far badan oo wanaagsan waan soo gudbi doonaa insha Allah oo majaajile leh oo riwaayada leh oo la maxay tahay sheekooyin leh oo wax far badan ma naga heli doontaan aad baan dhamaantiin wada salaam ya saaxiibkeena waa salaam iyo kamarada iga doobiya Ismaaciil aad mahadsan tahay dhamaantiin waxaan leeyahay hayno samaato la socdo channelkeena ila meerayso 10 insha Allah dhamaantiin